الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabaa inaan si kooban dadweynaha ula socodsiiyo halka kan waxaan ku joognaa hoteelka Leeyahay Kambinski ee magaalada Nairobi ku yaala. waxa halka kan marayay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay martiqaad rasmi ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. waxaan kula soconay wafdi ballaaran oo dhowr wasiir ay ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka deegaanka, wasiirka maalgashiga, wasiirka caafimaadka iyo aniga oo ah wasiirka arrimaha dibadda. si ballaaran ayaan halkaan loogu soo dhaweeyay. dawladda Kenya aad u diyaar garowday oo halkaa si ballaaran oo diyaar u tahay u soo dhaweysay baanu kula kulannay. waxaan nargeeyay hoteelka Kambinski. dawladda Kenya iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wada yeelan doonaan wada hadallo fara badan iyo iskaashi arrimo badan oo iskaashi inay ka wada hadlaan. berrito ayay labada madaxweyne ballansan yihiin. dabeedna halkaa waxaa ka bilaabmi doona wada hadallo ay wada yeelan doonaan dhinacyada kala duwan, wasaaradaha iyo madaxda dawladda arrimaha badan ee labada dal inay iska kaashadaan u qorshaysan. wafdigu maanta galabta nasasha ayaa loogu talagalay. berritana labada madaxweyne ayaa isarki yeelanaya. halkaasayna ka bilaabmaysaa wada hadalladii iyo in la iska brief gareeyo wixii hadba qorshayaalay jira. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا maanta uu idin sheegay waxa magaalada Nairobi yimi wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. wafdigan madaxweynaha oo ku yimid martiqaad ay ka heleen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa halkan joogi doonaan muddo 2 ilaa 3 cisho ah. wafdiga waxa maanta airportka ku soo dhaweeyay wasiirka beeraha Peter Munya, wasiirka dowladda arrimaha dibadda Ababu Namwambe iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. muddadan uu wafdigu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta ugu soo sareysa dalka, madaxda kale ee caalamka iyagoo halkan saldhigoodu yahay. insha Allah waxaan rajayn doonaa wixii warbixinaad dambana inaan dib idinku soo gudbino. hase yeeshee maanta wafdigu kulamadooda wuxuu ka ekaa uu qado soo dhaweyn iyo kulamo intaan ku eg ayuun bay ahaayeen. wixii dambe insha Allah iyo warbixinta dib idinku soo gudbin doonaa. Assalaamu calaykum.